بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخالد عبد الجاحنوك waxaan maanta sidii balantayno ahayd aan bilaabi doonaa chapter 2 insha Allah chapter 2 halkaas aad ku arkaysaan magaciisa waxa la dhahdaa the recording process. waxa uu chapterkan objectives baa jira loo baahan yahay inuu ardaygu awoodo marka uu chapterkan dhameeyo insha Allah. The recording process waxa weeyaan waa qaabkii wax loo record gareynayay. company ba tahay ama meherad ba tahay waad shaqaynaysaa sidee ayaad wax u diiwaangelinaysaa halkee ayaad kaga hagaajisaa maxaad ku bilaabaysaa maxaase ugu dambeeya insha Allah chapterkan waxyaabaha aan ku falanqayn doono ayuu ka mid noqon doonaa the recording process. Objectives waxa weeyaan after this chapter the student should be able to know waa inay ardaydu awoodaan in markuu chapterkan dhamaado qodobadan hoos ku xusan waa inaad garanaysaa the credit and debit rules oo barta chapterkan base waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah. waa inaad sidoo kale garanaysaa what is a journal, what is a general journal, waa maxay general journalku muxuu qabtaa siyaasa loogu shaqeeyaa, what is the T account ayaan arki doonaa iyadana waa maxay T account. sidoo kale waxaan arki doonaa how to identify events sida dhacdooyinka loo aqoonsado dhacdada businesska ka dhacdo markaan leeyahay waa transaction baa loo jeedaa. transaction kale waxa weeyaan waa iib dhacay ama wax dhacay ama expenses la galay maaha dhacdadu maaha hawl weyn oo dhacday oo kale oo arrin kale laakiin waa wax businesska la tacalluqo lacag ama lagu kala qaadanaya arrimo financialka businesska la xiriira sidee loo diiwaangelinayaa recording transactions iyo sida loo diiwaangelinayo how to post transactions sida waxaa la diiwaangeliyay loo geynayo from ledger looga qaadayo ledgerka to trial balance wax la dhaha loo geynayo halkan waan ku arki doonaa ledgerka waxa iyo trial balance waxay yihiin insha Allah chapterka markaan dhiganayno ewankaas. how to prepare the financial statements sidee baa loo diiwaangelinayaa sidee baa loo diyaarinayaa baan jeedaa financial statementka waan ka soo hadalnay waa 40 waraaqood saddex baan ku dhiganaa koorskan insha Allah hadii la raado income statement balance sheet iyo liquidity statement insha Allah saddexdaas sida loo diyaarinayo waa inaynu garanaa insha Allah. waa the recording process oo sidiisii uu chapterka intaad arkaysan u yaalaan sidaas ay u kala horeeyaan marka waxaas oo dhan garataa businesskii dhacdooyinkiisa arrimihiisa diiwaangeliso oo ledgerka ka hayso trial balancekiisu waxaad diiwaangelinaysaa waxaad hagaajinaysaa iyadana oo diyaarinaysaa financial statements oo halka ugu dambaysa in la xidho unbaa ka dambaysa xisaabtii oo iyada akawnadii la faaruqiyo sanadka dambe loo diyaar garoobay laakiin xisaabtu financial statementskaas ayaa ugu dambeeya marka xisaabtii la xidho wax kasta lagu kala faraxasho riboodadii la akhrisanayay ee ka soo baxay natiijadaas weeye. haddii aan hore uga sii socono halkan waxaad ku arkaysaan the debit and credit rules. debit and credit ruleskii chapterka ugu horreeyay dhigana maxay yihiin debit and credit marka hore laakiin sidee ruleskan ay sheegayaan in lagu shaqeynayo waa sidee. the debit and credit are some of the terminology of accounting and finance waa qaar ka mid ah terminology-ga ama luuqadda u gaarka ah accounting and finance-ka. that balances kuwaas oo balance gareeya ama isu miisaama the chart of accounting ayay isu miisaamayaan. chart of accounting waa managii soo sheegnay waxay ahaayeen expenses, assets, drawings, capital iyo revenues. lixdaas baan soo sheegnay lixdaas sideeba debit and credit-ka loogu qorayaa weeyaan ama ay ugu shaqeynayaan. iminka halkan waxaad ku arkaysaa number 2 how to use the debit and credit rules. debit and credit kan aan soo sheegnay waa terminology accounting ku leeyahay waxay balance gareynayaan chart of accounting sidee u balance gareynayaan sidee si loogu shaqeynayaa sidee loo isticmaalayaa ayaan ku arkaynaa. number 1 the assets increases haddii assetka company-gu kordho wax kastoo assetka company-ga kordhinaya waxa lagu qorayaa debit side-ka. wax kastoo assetka kordhinaya number 1 waxaan nidhi wax kastoo assetka company-ga kordhinaya waxa lagu qorayaa debit side-ka. halkaa waxaa kaaga cad wax kasta oo yareynaya in lagu qorayo credit side-ka. sidoo kale expenseska waxa ay ka kordhayaan ama wax expenses kasta oo kordha ama kharashaad kasta oo ingalo debit side-ka lagu qorayo. sidoo kale kharashaad kasta oo inaga yaraada oo kharashkii inaga yaraada in credit side-ka lagu qorayo. drawing are increases sidoo kale drawing wuxuu ka kordhayaa debit side-ka. haddii ninka company-ga lahi uu kala baxo lacag banka ama aynu u dirno drawing-kan waxa lagu qorayaa debit side-ka. saddexdaas bartan ku arkaynaa waa halkay ka kordhayaan. sidoo kale waxaa inoo
الآن halkan lagu xusin oo iyaguna noo maqan saddexdaas marka yaraanaya halkay ka yaraanaya iyaguna wax ka yaraanayaan credit side sidoo kale saddexdii kale ee capital iyo revenues iyo sidoo kale liabilities waxa iyaguna ka kordhayaan halka ay kuwani ka kordheen debit side-ka oo haddii ay kordhaan debit side-ka la dhigayo oo lagu qorayo sidoo kale saddexdaa kale haddii ay kordhaan iyagana waxaa la dhigayaa credit side-ka ama lagu qoraya credit side-ka insha Allah wuxuu ku yiri where halka the remaining three chart of accounts saddexda kale ee hadhay ee chart of accounting kaas waxa ay ka kordhayaan credit side-ka chart of accounting ka hadhay waxa weeye waa revenues liability iyo capital way ama investment tila sameeyo waxa lagu qorayaa Allahumma salli ala Muhammad credit side-ka marka insha Allah qaybitaan baa casharkan u baahan yahay casharka insha Allah inoo soo socda hawshii weyn caadi guda galeynaa shaqada businesska dhacdo kasto dhacdo waxa la doonayaa in barteeda ay ku diiwaan gelino hadda debit side iyo credit side tahay sidoo kale waxaan doonaynaa in tii account wuxuu yahay ogaano journal wuxuu yahay ogaano sidoo kale waxaan doonaynaa xisaab xidhka inaynu sameeyno xisaab xidhka inaad sameyso waxa ka horeysa inaad waxaan u dhafaanto halkee ayuu asidku ka kordhayaa markuu yaraado halka lagu qorayaa expenses markuu yaraado halka lagu qorayaa markuu bato halka lagu qorayaa drawingku halka lagu qorayaa sidoo kale saddexda kale halkeebeyguna ka kordhaya halkeebeyse ka yaraanayaan insha Allah chapterka waxa la doonayaa in casharkan maanta si fiican u qabano si aan chapterkan uu inoogu fududaado insha Allah waa base-ka ayuu chapterkan ku xidhan yahay inaad fahanteen tan hore. Wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.